magaalada Kismaayo waxaan kaga duubayaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweyne guud ahaan dalka Soomaaliya abaarihii baanaya ku dhuftay geeska Afrika aad iyo aad baan looga soo kabanayaa Jubbaland markay timaado xaaladdu say tahay بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعان على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد السلام أدب هرت ومحسنتهاي فعلا سؤال قف كسطو صومالي وما أنت تساؤلات كذي سويدية هذا عيلة هاي أنت عبارو هذا الحمد لله روبا داي عبار أضيق بيهايد ولي بقى أنا يوم مركي Jubbaland لقاها الله وصدح قبل وحاوسي درها قبل كجدو يجبل اللي حوا جودهان أي شباب قعنتها كوهيان waxayna ahayd abaar aad u dhib badan oo roobkii dayrtii hore guugii labaduba ay yaraayeen kana uu soo daahay xogaa aad moodaysa marka in abaarta ay cuslayd laakiin aan isleeyahay waa laga soo kabanayaa laakiin dhibka jira waxa weeyaan abaartu way dhacaysaa maxaa lagaga hortagi maxaa loo diyaarsaday see looga baxayaa waa su'aal kale laakiin abaartaas hadda waxaad moodaa laga soo kabtay roobkuna alxamdulillah hadda dadka si toos ah wada caamimeen waxyaabaha Jubbaland madaxweynaha kaga duwaneyd meelo fara badan oo kale dalka Soomaaliya waxa kamid ah iyadoo saad sheegtay Jubbada dhexe gabi ahaan baa gacanta ugu jirtay ururka al-shabaab Jubbadii hoosena meelo badan ay joogaan gada qudheeda ay joogaan meelo kamid ah sidee bay idinku suurta gashay marka gurmadina u fidisaan dadka عبد السلام أنا وحنا هقفك أقول بدن إكهاد لي قربتك أبارتا وحنوجه مهمسن إن لقاضو حول قل عيدا أو لو حوالين يديك صوت عدتك أقول مدنا إنا وحجارسينه وإلا وعدك حجارسين تود عدتك أقول مدنا إن ما هن أبارتا كليه وحكوش لشون بيون يعني ماشي كدعي إنا وحجارسينه قبل ديك أنا بدنا ديان كم ده وإلا وعدك ساد رادد وحنا نو مهمة ساري hala la qaado operation hana la xoreeyo dadka sababtoo dadku waxaad wax gaarsiin kartaa marka aad wax gaarsiin karaysa laakiin hadii aadan wixii aad haysay aad gaarsiin kareyn waa arin aad iyo aad dhibaatadeeda u lahayd oo shoobiyoodkaasi ka mid yahay oo abaartu ay ka mid tahay oo duruuftaas saameyn badan bay leedahay marka dariiqo badan waxaan wax ku gaarsiinayna meelaha qaarkood hadda inaan ka sii hadlaa iska adag tahay bal haddaan ku sheego xataa lacagii hadda abaaraha loo soo ururiyay lacagtii ugu dambeysay hadda oo ay dawladda federaalka naga soo gaadhay aan uga mahadcelinay dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta ay soo ururiyeen waxaan u maleynayaa hadda lacagtaas iyadoo sideedii ay taala sababtoo roobkiina uu daay deegaanada qaarkoodna waxaan lagu adkaatay inaan wax gaarsiino sidaa daraadeed waxaan ka fakaraynay warbalbari wadanka mooti hadii hadda tusaale ahaan Hargeysa oo kale ka soo qaaday Soomaaliya markaan guud ahaan Soomaaliland oo kale aan fiiri meelaha jooga ugu weyn ee maraan biyaha ugu badan waxaan maqlaysaa maanta dooxa Hargeysa wuxuu la tagay intaasoo baabuur iyo intaasoo dad biyahaas meel lagu celinayo malaha way socdaan dooxaasi markay biyahaas qaadaan maalmo kadib waxa leedahay biyo la cabaal la yahay iyo geed deeb la loo doon iyo biyihii baa yaraaday Soomaaliya dhawada noocaas oo kale sida hadda ay Soomaaliland iyo Hargeysa abaartu uga jirto toogaas inoo marayaan yaa halkan hadda webiga Jubba soo socdo wuxuu ku darayaa badda oo biyaha waliba intaas oo kiiloomitir ba biyaha guduud noqonayaan oo isbedelayaan oo ay keenaysaa in biyaha xoogooda aad garanayso inta ay badda sii dhaxgalayaan ka faa'iideysiga ma jiro dadku marka waa iska meelool inay abaartiina timaado lana qayliyo roobku doo biyuhu iska dhaafaan meel walba Soomaaliya noocaas waan la qabnaa laakiin anagu waxaan noo dheer waxaraha hooyadood waxay geerida wada soo galay laakiin mareegta u dheertay anaga waxaan noo dheer hadda shabaabka iyo culayska oo noocayo waxaan mar walba ka hadlaa deegaanada in aan ka xoreyno shabaab oo dadka ay keeni karayso in Soomaalidu ay isu socoto dadkana wax la gaarsiin karayo maanta haddaan ku ilaahdo dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo kulligood hawada la xukumaa safarka maanta haddaan dabo inaan ahmad oo xoraado inaan diyaarad qaato shabaabkiina dhulkii bay xukumaan iyaga dhulkii isu gudba iyaga isu gooshay mootay xaqada la iska wada tiri karay mudane madaxweyne way noo iman doonaa taal shabaab iyo arrimahooda laakiin tan abaarta
إن وحلا يسويدين كرا ضوحيدا شيء xilliga gugo kaliya ama dayrta ayay rugmadaan inka marka sidaad sheegtay webiga weyn ee Juba oo halkan maro sidee bay ku dhacaysaa in dhulku uu abaar noqdo oo biyo laan la dareemo absan dhulku wuxuu u baahan biyahan in laga faa'iideysto oo la furo oo masaafo dheer la waraabiyo oo biyihii magaaladan Kismaayo arkaysa hadda biyaha waxay ka soo qaadan jirtay Yoontoy waxa biyaha webiga loo macaanayn jiray hadda ceelal bay shirkadda caafiba waxay samaysay inay macaanayso ceelal qodo ceelashii oo dhan kulli way gureen waa biyihii bay eber noqday biyo ma laha waxay noqotay magaaladu ceelasheedii yaryaraha gaagaabnaa oo la maaxinayo oo sidana waa dee ka faa'iidaysiga dawladda baan shacabku mooti kama faa'iideyn karaan dawladdiina dhaqaaqa iyo ani wixii waxaad isleedahay anugu barnaamijkan wax isku wada xidho weeye tan biyihii iyo abaartii iyo ka faa'iidaysigii iyo xoreyntii iyo kulli way isku wada xidhan tahay maanta waad aragtay meelo ka mid aad soo martay 30 kilomitir xaggaas inaadan u gaari karin baa laga yaabaa meel magaalada hareeraheeda oo shabaabka ay joogaan maxaad biyihii ka faa'iideyn kartaa marka cabdisalaan adaan ku weydiiyey arrinta ku saabsan la dagaalanka ururka al-shabaab waxaan filayaa inay isla soo qaadeen madaxweyne Farmaajo markii toddobaadkan uu booqashada ku yimid magaalada Kismaayo maxay iska tirahdeen ma aha inaan Farmaajo kaliya isla soo qaadnay cid walba waa la isla soo qaadaa waxaana la isku raacaa dagaalka shabaab inuu waajib yahay aan qaadno aan soconno hal hawl galo intaasi waa wax meel looga wareega aan lahayn laakiin waxa laga hadlayaa fulintu say u dhici kartaa saad ogtahay ciidamo badan oo soo jooga dalka waxaa jooga Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia waan ku ballanay hadda inaan hadda operation qaadno laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego muddada hadda waxaan soo galnay magaaladan 2012 Oktoobar 1 waqti dheer intaasoo ciidan baa isbeddelay marka ugu badato 30 kilomitir 40 kilomitir baa la tagaya UN baa joogta waxaa laga hadlayaa international community wala waxaan caawinaynaa kan wixii waa laga hadlayaa mar kastoo la isla soo qaado si positive looga hadli oo la isla gaari aan soconno aan duulo aan kan samayno laakiin waxaad moodaa in weli diyaar garowis madaxweynaha hadda waan isla qaadanay hawshaas in ciidankii xoogga dalka Soomaaliya la qalabeeyo annaga ciidamo badan oo diyaar u ah Amisom talada hadlo ciidamada Amisom waxaan ku heshiinay hadda inay diyaar yihiin operationka Juba corridor wax la yiraahdo hadda la dhaqaajiyo laakiin kuma confirm garan kara saacada u dhacay inkastoo hadda heshiis ku nahay in hawsha la dhaqaajiyo diyaar garow soo dhamaan maxaa ugu canbay kula tahay marka adiga aragtidaada in hawshaasi ay sidaa u jiitanto أنا مركان دبلوماسي أهم مثل مركان أنا هين مركان دبلوماسي هيدا وحوي يعني أوجه كله لكن مركان الدبلوماسي كله أنا ود بشركة لندن وحام قالوا إنجليز كأكولي صوماليا وحيوبها أنت هالوجه وأنت صوماليا قالان كيس كان شباب كساب صواح كان قبض يا عبد السلام أنا وذكرت والضباب بدل ما دقاك سكين وقدم بي كلنا حل بين لقوا ذقاري ليبيريا وذقي maraykan baa yimid keligii baa isu istaagay si madax bannaan buu isagu waxooga qabtay wuu dejiyey Sierra Leone baa dowlad Ingiriis baa u yimid oo sidaan u qabtay Burundi iyo Rwanda iyo inta ka dhawantay Soomaaliya kaga bayna dhiman dagaalada sokeeye dadku waxay iskaga laayeen Soomaaliya masaalix kala duwan iyo dawlado kala socda ana marka qaarkood waxaan iyaga ku raadin international community waxaad ku jirtaan tijaabo Soomaaliya aad manaha ku tijaabinaysaan intee sano dawlad la'aan ahaan karaysa waxaan rumaysnahay inaan la Mareykankaas wala Ingiriiska wala kuwa kale inaan cidina daacad ka ahayn barnaamijkan xasilintiisa iyo dejintiisa iyo Soomaaliya in barnaamijkeeda wax la dawladihii qolo waliba danbay leedahay masaalixdeedaas fiirsanaysa waxaad moodaa in anaga la isweydiinayo masaalixda la naga leeyahay iyo qolo waliba interestkeeda anaga danteeda ayna cidi fiirinayn marka laakiin madaxweyne haddaan ka dhex galo dhinaca kale dooda taa ka hor imanaysa باش عالم كاي قبان waxa weeye Soomaalida qudhoodii ayaa waxay heshiisku yiraanay jirin soo taasina ma jirto Abdullah Soomaalidu waa horta hal ceeb ay Soomaalidu leedahay wuu jirtaa oo nooci wadaniyadii iyo laakiin Soomaalida laftirkeedu markaad maanta fiiriso Soomaalida mas'uuliyadda haysa iyo kuwa soo noqonaya iyo kuwa siyaasadda hagay iyo kulligood maanta inteenan markaan isweydiin halkan fadhida ninkan wuxuu sheeganaya waa Norwegian kan waa Swedish kan yani laftirkana sabaacada kale dawlado kale aan lagu wada xidhan ha noqoto
haddana dadkii waa dagaal anugu mar walba waxaan taagnahay in kiiskan uunan ahayn mid Soomaalida keligeed lagu cilayn karayo waxaan isleeyahay faragelinta kale ee dawladaha kale qaabka lagu qolo danaha Rwanda waxa uu maleynaysaa inay Hutu iyo Tutsi iyo hadda dagaal qabiil Soomaaliya kama jireen inay noocan qaadan lahaayeen maya ana waxaan isleeyahay gacmaha shisheeye kama madax banaanin siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta iyo kulligoodna kama madax banaana in faragelintu ay dhinacyo badan ay ka iman karayso marka aan luqad diblomaasiya ku hadlin aan luqadda ku hadlayo qofka caadiga ku hadlayo laakiin haddaan su-aashaydii mar labaad kuugu celiyo waa talaylahaani gunbay ka talantaa dhibaatadu cidda ay ka abuurantay welina ay dhex taagantay hogaamiyaasha Soomaalida Soomaaliya maya ma qabataas Soomaaliya hogaamiyaasha Soomaaliyeed bayna burburinin waan ku saraxanayaa Soomaaliya burburkeedu mar walba dibadda lagu ku leeyahay inay burburto iyo inay day weydo Soomaaliya kiiskeeda waa wax mar walba gacan banaankii ay ku jirtay aragtidaada markaas ee looga bixi karayaa markaa waxa looga bixi karaa NF anagu tijaabadii waan soo dhamaysanay international community masaalixda ay naga leeyihiin iyo cid waliba danta ilaa intay banaan ka dhigato Soomaaliya inay degtaa lagu heshiiyo ilaahuma hal dawlad la yiraahdo xataa barnaamijka Soomaaliya wax kala qabo ka xalin annaga Soomaalidii marka qaab uma ku heshiin karayna laakiin anu Cabdisalaam barnaamijkaasi qof walba waan kaga duwanay qof kasta waan kaga duwanay la kuwa siyaasiyiinta iyo kuwa kale arinta Soomaaliya waxay u baahan tahay feer ciidan baa jooga intaasoo kun ah oo amisom kumanaan kun baa jooga waxa laga hadlayaa intaasoo kun oo Soomaali ah waxay maanta midowga Yurub marka la hadasho iyo UN iyo intaas Arab League iyo Turki iyo waxa la leeyahay intaasoo lacag Soomaaliya ku bixinaa ma dhici kari weyd lacagta lagu bixinayo iyo ciidanka waxa la siinayo intii la daba galo in la yiraahdo maxaa la qabto maxaa la sameeyay meena dhici karin oo waxaan aan u bixinay aan daba galin haddaan intaasoo milyan ku bixinayo bishii وحين وان استبانا قادي واي أنا بحنايا هذا رالك هينسد أنا على أرنتاسي معه هجاميال وذنا مدح ونواي مكان سؤال شيء سكلا كوجود له سومالي ذو حقات النظام كان فدرال كا أو جبلان أي كم تهاي ما كنت هاي أركتي هذين وشقينيا أرتا ما له يبغى حان لها سوالي فدرال بقاعدتي لكن أنا خليف قليل بوحان كبرت ما لي هذا هو الدمير دمديني كدقي دمودي waxa yaala federaalka markaan dhabahaan u hadlayno horta federaalku Soomaalidu intee leeg barnaamijkan aqoon u leedahay garanaysa nooca federaalka qaadanayso federaalku mid ku yahay nooca uu yahay horta Soomaalidu intee leeg bay u fahmi karaysa waa qodob inay hadda federaal noqoto oo at least bal meel la isugu soo hagaagi karayo meel walba intideeyo walba la soo dejiyo bal xataa haday marka dambe santar ba ku noqdeen horta bal deganaansho la helo xasiloon ilaa wadanka uu kala googay qabiil baa la dhaxdhigay dib badan baa dhacay in la soo dago oo qolo walba gooni ay qaab soo noqoto aniga aragti saxan isla hadda wayta laba shalay markii caasimadii burburtay wadankii uu wada burburay laakiin maanta haddii Jubbaland ay burburto wax ka dhacaan waxa laga yaabaa koonfur galbeed iyo galmudug iyo Puntland inay yihiin deganaansho ay jirto waa rajo macni wax lagu gaari karay anigu waxaan qabaa shakhsiyan marxaladan hadda lagu jiro in deganaansho la hela nidaamka federaalka iyo balin isteediyadii la soo dhiso oo at least dadku xuquuqdooda waxay garan karaysa lagu soo dhisaynay maanta ay xal tahay laakiin shakhsiyan hore waxaan idhaahdo waxaan ka jeclaan lahaa Soomaalida aan arki jiray iyo dariiqan ku arki jiray iyo kan qodobka labaad dadku federaalka laftirkiisa waa laga adduunka federalism badan baa jira noocyada noqonaya federaalkan qaadanayno qaabkeen u dhaqmaynaa sidee dawladdu noqonaysaa qaabku yani waa su'aal u baahan in dadka laga dhaadhiciyo laftir waxyaalaha qaarkood aan ka hadlay laftir inaan aqoon u lahayn nooca federaaladu yihiin kaan qaadanayna waa kee seebo noqonaya bal ee dawladda dhexe laftirkooda nin kastoo yimaaday wuxuu soo xusuusanayaa markuu kursiga fadhiisto Soomaaliya from 1960 up to 90 siday ahayd iyo dawladdii jirtay iyo qaabkaas laga yaabo qofku inuu waxa ku soo dhacaya ay noqoto wuxuu arki jiray uu ka hadlaya laakiin waxa laga yaabaa inuu fiirinin bal hadda dantu waxay keentay iyo qaabkay tahay marka mudan madaxweyne sida dad fara badan oo barnaamijka daawanaya ka warhayaan ma jirtay imka wax wada shaqeyn oo la sheego
oo maalin walba socota oo u dhaxaysa maamul goboleedyada tiino ay ka mid tahay iyo dawladda federaalka ah haddii aan ku weydiiyo aragtidaada sidee looga bixi karayaa dhibaatada horta wada shaqayn way jirtaa nisbiyan wada shaqayn la'aan ma jirto lama oran karo qodobka labaad hadda markii aan ka hadlayo marxaladda hadda ugu dambeysaan soo dhaafnay waxaan isleeyahay haddayna wada shaqayntii isteediyada iyo dowladda dhexe ayna jirin Soomaaliya doorasho 2017 kamayna dhacdeen waa marka dhabta laga hadlayo xaqadu waxay ahayd annaga waxaa jiray wax la yiraahdo leaders forum ama NLF baan isku madasha aan isugu iman jiray yani masiirka taasaa waxaa keentay inaan wada cad oo aan ku ridi kara la sameeyo wada shaqayntuna saxweed haddana madaxweynuhu shalay waa kii halkan isku aragteen oo tagay kulamaan leenahay barnaamijka amniga iyo kulli ana waxaan isleeyahay wada shaqayntu ugu jiraa kaliya waxaan isku haynaa ugu badan waxa weeyaan dawladda dhexe oon ku eedayno inay mas'uuli magacii iyo sheegashadii iyo wixii badbaadiina ay iyadoo rabto mas'uuliyaadkii iyo waxyaalihii responsibility ah dadka ay ka qaadi lahayd sababta maanta state-ka marka la yiraahdo amni ciidankii waxbarashadii golihii wasiirada baarlamaankii shaqaalihii dawladda khadamaadkii mujtamaca wixii oo dhani aday kugu soo dhacaya waxa laga dawladdii dhexe waxa ka soo gaaray inuu wax yar yahay ama una jirinba dawladda dhexana wixii ama Soomaaliya loo filnay kaalmo ama kan iyada ay wixii dib ugu noqonayso wax badan oo wali la salaynin oo jiro mesela sidii canshuuraha loo midayn lahaa oo kale resource-ka sidii loo qaybsan lahaa oo kale wax badan oo kale wali aan isla gaarin ana waxaan isleeyahay ma ka waxaynaya laakiin wada shaqayn fiican baa jirta step hore aan u qaadanayna way tahay talaabo baradkan amsalana wax badan baa ka iman karaya wax badan aqoonta u khuduucaysa oo wixii shayga aad sameynayso inaad aqoon u leedahay baa ka fiican oo marka hore dadkii wax la isla qaatay uu yahay constitution-kii baa qabya oo weli aan dhammaystireen oo waxaysan qaabkii federalism-kii noocu noqonayo marka Switzerland baan qaadanaa marka Mareykankaan aadnaa marka Ethiopia nagu dhawaantaynaa marka untiyadan Kenya qaadanaa waa su'aalo u baahan in sidooda loo waxeeyo marka ana waxaan isleeyahay wada shaqayn way jirtaa haddayna jirin dee talaabadan hadda lama qaadin laakiin waxay u baahan tahay in marka madaxweynaha ku soo noqdo tawarurka al-shabaab iyo dagaalka aad sheegtay inaad isku raacdeen adigana uu ka go'an yahay waxaad sheegtay 22,000 oo askari oo amisom ay joogaan dalka Soomaaliya ciidankii Soomaalida uu jiro kii maamul goboleedyada uu jiro kii qabaa'ilka taabacsan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu jiro iyadoo intaasi ay jiraan sababtay ku dhacday in loo maaro waayo in al-shabaab la qabto وسؤال في عن لكن عبد السلام ومركز سؤاشة جوابته ربطة دونيسو حبها أنت حريرين شباب ما أنت ليلة وحوير الله قاضية هذا ساكو وكله بوصاص المال ويروين حالي ما هداي بيجرين مجانا كلي بريجليا مال بدأ كل عيا حصل الله في سنة يو يسود كل من يمشي وهذا يعني وحامق الحريرين تي وحبها أنت هالأوبريشن oo xiriirsan oo hal mar lagu sifeeyo shabaab markaan maxaakiimta ay baan ka xoog badnayn waa taas kana hoggaan fiican kana xoog badnayn laakiin waan garanaynaa qaabka loo dagaalamayo isaga wuxuu jireen aan waxaas leeyahay marka waxaa maqan hoggaamintii iyo xiriirintii iyo operation mar la wada qaaday in la sameeyo oo waxay noqotay maanta saan ku sheegay afartii DBM kii cadaaya kii madoobaaya kii kala midba mar meel loogu tagay oo aan xiriir jirin ma la xiriir ma jiro dawladiina dhufayska oo ninkani 3 sano ka hor ku jiray wali ku jira yani la dawladii Soomaaliya iyo leadershipkii hogaamintii laga rabay ma laha qolada international kuna waxay sheegaan kama dhameynayaan ma jiro kuwii dawlad goboleedyada iyo gudoodii isku mashquulsan oo waxa laga yaabaa talaabo hore u qadan amniga magaalooyinka ka bixilayeen yaa laga mas'uuliyadu ay saaran tahay inay arintan xiriiriso oo la mideeyo hal operation la qaado waa mas'uuliyadda iska aniga ma ahad iska sida adigu sheegtay madaxweyne waxaad ka mid ahayd madaxdii sare ee maxaakiimtii islaamiga ahayd marka ay u suurtageli laadahay intaas oo hay'adooda aan sheegay dawladda federaalka ay tii maamul goboleedyada sida iyaga ugu suurta gashaa tusaale ahaan imka Jubbaland oo kale
meelo kala duwan bay joogaan gobolka ay si buuxda gacanta ugu hayaan waxa weeye jubbada dhexe halka ka helaan tusaale ahaan saadkan iyo rasaastan iyo isgaarsiintan iyo waxna howlahooda ay ku wadaan waa su'aal fiican nimanka dhulkii iyaga jooga mujtamacana inta badan deegaanadii iyaga gacanta cashuurta ay ka qaadaan bal iska daayay ganacsatada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn joogta ee dawladuhu ay joogaan nin walba waxa weeye badeecadiisu bannaanka u baxaysaa khasab buu canshuurta ku bixiyaa ama halkaa gee ama hayeelin meelaha qaarkoodna dee awood aada u buuxday ba ku leeyihiin canshuuraha ugu badan magaalooyinka waaweyn bay ka qaataan oo ay dhab tahay saanadda way furan tahay waxaa laga yaabaa way la soo degi karaan waxyaabo badan baa la heli karaa ciidamada ay ka gadan karaan waan an waxaan isleeyahay taasi waa magan maxaakimtii joognada maanaan dekadana maanaan deeban kastoon markaas wadanka saan gacan ku-haynta ay ka waxaysneen haddana wax dibadda ka soo degi jiray ma jirin mararka qaarkood dowladda lafteeda waxay haystaan qaadan jira ama si kay beec ku heli jiray ama xoog ku heli jiray marka taas ma waa mudane madaxweyne haddaan dib ugu noqono arrimaha Soomaaliya imika ka taagan gaar ahaan dhinaca siyaasadda qofka Soomaaliga ee caadiga ee suuq jooga ee rumaysan in nidaamkan imika la qaatay uu yahay in siyaasiyiinta oo dantooda eeganaya mid kastaba dadka meel uu ku wato dabadeedna uu intaa isagu sheekh u noqdo oo tii dadka ka dhaxaysayna faraha laga qaado ama aan xoog ba loo waday maxaad ku qancin lahayd markaas aad ka hadlayso maxaad loo kaway dareenka qofka Soomaaliga ee suuq jooga caadiga ah ee qaba in siyaasiyiintu nidaamkan la qaatay maamul goboleed waliba uu sidiisa isu bixiyo oo aan la rabinba in sida sheegayso tii guud ee Soomaaliya oo dhan laga shaqeeyo maxaad ku qancin lahayd waxaan ku qancinayaa horta kan siyaasiga Cabdisalaam afkan uu ka dhaxyimay meel kale ka soo baxay maanta bari hebel baa noqonaya bari dama kana noqonaya mushkiladdu waxa weeye Soomaalidu marba ninka markaa jooga yaa taargada laakiin kii shalay ka tagay iyo ka bari imanayay su'aasha jawaabteeda lama weydiinayo tusaalahan ka soo qaado gobolkan haddaan naga joogno gobolkaani inaan shabaab ka xoreyno oo ay doorasho ka dhacdo oo deganaansho siyaasadeed la helo oo dadku isu yimaadaan waa shay waxtar qof walba oo inay ku heshiiso Soomaali dawlad federaal iyo inay centralism noqoto iyo inay dariiq kala qaadana waa wax siyaasad guud u taala maanta marka aan shakhsiyan iska soo qaado masaalix shakhsi oo igaga xidhan ma jiroon dalada guud iyo Soomaali iyo aragtida guud iyo wixii aan ka qaban karaanahay haddii mar ay noocaas tahay marka yaa la isdhaliilaya la isheeday qofka Soomaaliga waa inuu garto kuwan mas'uuliyiinta ka guriga jooga ku furfuraya ee Soomaaliga suuqa jooga hadday qabiil noqotay hadday xisbi noqotay hadday maxay noqoto isaga suuqa kaga shaqeynaya qobri markuu baarlamaanka yimaado ama siyaasadda yimaadana ma aha kii luqad kale ku hadlaya ana waxaan leeyahay wuxuu yiri kuwa waaweyn ee sheegaysa kuwa yar ee sheegaysa fiican kuwa waaweyn baa dhalay kuwani waxa ay suuqa mas'uuliyiinta anagu mujtamaci suuqa ka soo dhaxbaa nin walba markaa ma aha inuu cilada bari yeelanayo wixii aan qaban kariyo sida loo qaban kara laga hadlo waxaan laga waanu waa inta hadda dawlad goboleedyada jirta masaalix maanta nin ay kaga xiran tahay oo dan gaar kale Cabdikariim shalay buu ka tagay hebel kale shalay faroola ka tagay bari aan ka tagaya kan kale nin walba uu tagaya oo waxaynaya ka yimaada markaa inuu noqdo marba kii ka yimaada waxa laga sheegay Lamas Cabdullaahi Zubayr ilaa aniga ma hayna kursiga murtada markii Sheekh Shariif mas'uuliyadda uu qabtay baa leeyahay Sheekh Shariif kina waxa waa murtad ilaa Shariif markaa isaga ilaa waan garan lahaa kursiga murtada marka kursigan ma aha in isaga eeda iyo dhaliisha iyo qaybta laga sameeyay Soomaalidu hadday fadlan sheeganaysana aan isla fahanna ku yahay haddaan wax kala sheeganayna aan xilligeeda ka hadalno danta aan ka hadlayno iyo waxaan isweydiinayna ha noqoto wax war maxaa dalkeena dano in la isdhaliilo oo la isdhaleeceeyo la isceebeeyana waxa ka fiican in la iswaaniyo wax la isu sheego wax la isla qaato kii qurba joogta ah waan arkayo nooc uu fakarayo waliba qabiilku hadda iyagu ku haday kii gudaha joogay waxa weeyaan maanta ka ku yimaada qabiil buu kala hadlayaa maanta reer hebel baan lahay aan sad bursan iyo aan ka yeelay talada kula yimaado mujtamacani marka in si guud wax looga qabto
oo arrintooda la xakameeyo oo tallaabo cad laga qaadaa xal ah laakiin cabdisalaan dhaliilayn iyo iscaabayn iyo kala eed sheegasho Soomaalida hadda waxaan u malaynayaa maanta dagaal qabiil lama jiro annaga hadda inta dowlad goboleedyadana waan isku fiicannahay wixii wax ka bedelis mudana waxaan u taaganahay inaan asal ahaan shakhsiyan waxaan rabaa inaan wuxuun laga siya oo bal dadka aan uga tagnay iyo deganaansho iyo wuxuun la helo haddaan naftayda ku waayana aan sidaa ku waayo haddii kalena aan tallaabadaas hore u qaado mudane madaxweyne waxaad soo qaaday qurba joogta meelo fara badan oo dalka Soomaaliya ahna kaalin mugle ay dib u dhiska iyo maalgashigaba ka qaataan Puntland Jubaland kaalintoodu saytay horta qurba joogtu markaan ka ugu dambeysay abaartii hadda ugu dambeysay iyo qaabka ay bal dadka si badan aad baan ugu mahadcelinaya waliba barnaamijka hadda abaaraha oo kale waxaan is leeyahay waxay ahaayeen xubinta ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta uga soo baxday dhibaatadaas inay wax horumarka iyo maalgashiga iyo wax badan ka shaqaystaan iyaga laftooda aan kula talinayna inay dib u soo noqdaan waddankoodii dhisaan carruurtooda aynan ka tegin oo sida hadda aan ka hadlaynay asal wuxuu ahaa Filibiin iyo asalkiisa wuxuu ka soo jeeday Meelabniyo Soomaaliya asalkiisa aan la oran waddankoodii ay carruurtooda dib ugu soo celiyaan waa sax weeye Jubaland ciladana haysto waxa ogtahay gobolkan hadda waa gobolka Soomaaliya gobolada ugu qanisan buu ku jira Juba Valley oo kale dawladda ugu dambeysay wasaaradda dooxada Juba waad garanaysaa waxyaalaha sameyn jirtay yani gobolkan waxa lagu qiyaasi karay suuqa koow waxaan noo ahayd xoreynta inaan qaadno kadibna inaan maalgashi iyo investment iyo wixii intaan diyaarin dadku ay soo noqdaan oo dhismihii iyo horumarkii iyo wixii ay ka qayb qaataan laakiin annaga weli waa bilow sababtaas aan kuu sheegay weli culays shabaab baa wax badan naga haysta marka waxaad leedahay kalsoonidii xagga ammaanka oo kale tusaale ahaan ayaa weli sugnay taasaa weli boqolkiiba boqolayn laakiin hadda way yimaadaan wax badan bay qabteen iyaga hadda shaqo badan ku jira iyagoo mutacalimiin iyo markaan hadda ka soo qaado waddanku hadda wuu burburay cabdisalaan saad u ogtay maaha guryaha kaliya inay burbureen dadka iyo cuquushood yani human resource inaan dadkii helo wax qabanayay laftirkeeda wax weyn maadhood agaasimayaal baan imtixaan ugu dhignaa dhiijiyada wasaaradaha yani koolatan qof baa waxaan u malaynayaa intooda badan waa dhalinyarada qaxootiyada ka soo noqday wax ku soo baratay waa baahida noogu badan ugu yareen u baahannahay inaan helo oo human resource aan helo dadkii iyaga laftirkoodii balay noqdaan dadkii wax qaban lahaa laftirkooda la helo sababtoo qofka hadda joogay waddanka gudihiisa waxbarashadiisu zero way ahay waxaad arkaysaa 4 sano dugsi oo qof leeyahay sanad buu kaga baxay yani wax badan baa jira marka waan soo dhaweynayaa imaatinkooda iyo weliba inay xataa xoreynta iyo waxba ka qayb qaataan laakiin waxaan u diyaarinay maalgashigii iyo dib u dhiskii waddanka iyo shaqo abuurista iyo kulli inay ka qayb qaataan qurba joogta ugu badan baanan islaahay qaxootiga ugu badan hadda Kenya ka soo noqonaya reer Jubaland maanta dhakhtarkii iyo macallinkii iyo kalkaaliyihii iyo kulligoodna waan ka wada helayna waa waxtar markaas islaahay anigu arrintaas waxtar weyn baa noo mudane madaxweyne dadka qaxootiga la soo celinayo ee maashiyahooda la filay hadda su'aal kale ka weydiiyo waxaa jirta dood odhanaysa haddii aan dadka loo diyaarin waxyaabaha ay u baahan yihiin ee hoyle ee waxyaabihii noloshooda ay ka soo saari lahaayeen leh ee caafimaad leh ee daryeel kale leh inay dhici karayso in dhalinyarada faraha badan leh ee la soo celiyaa ay markaa miciin moodaan inay shabaabka ku biiraan warwarka saas adiga ma kuu muuqdaa cabdisalaan waad ogtahay halkan waxaanu nidhi qaxootiga hala joojiya hala hakiyo international community aan la kulanay iyo hay-adaha ka shaqeeya oo dhan waxaanu ku nidhi waxaan u baahannahay dadkan qaxootiga intaan la keenin shalay reemiyii buu ahaa beeraley buu ahaa xoolihii baa ka dhammaaday beertii baa ka waxaysay colaad baa soo barakicisay magaaluu tegey ilmihii iskuul bay galeen noloshiisi way isbedeshay wuxuu noqday yani noloshii ku jira midka inuu heli karayo amnigii ha loo diyaariyaan ku nidhi oo waxa ku baxayay meesha markiis waanta xiriha dhadhaab waxbarashadii bay haystaan caafimaadkii bay haystaan waxaan ha loo diyaariyo oo marka loo diyaariyo kadib dadkii ha la soo raro waayo dee qof qaawan ma qaadi karo annagii oo qaawan oo IDPs iyo barakacayaashii si aan idhaahdana oo kuwii danleydahay ku baabaasanaa dhibaato iyo culays ay nagu hayaan markii qaxooti kale la soo qaado oo ay noqoto IDP in mid kale lagu daro dadkii barakacayaal kale lagu sii daro
oo ninkani shalay waxbarasho haystay caafimaad haystay intii uu waayo oo waxba loo diyaarin wax u diidayaa ma jiro intuu madaxu iska kaco shabaab iyo jin iyo cid kastoo dhibaato wada inuu ku biiro ama uu noloshu si kale yani wax u diidayaa ma jiro taa markaa international waxay markii nagu eedeeyeen la yidhi Axmed iyo maamulkiisu waxay diidan yihiin in la soo celiyo dadka waxaan ku maya ma diidani bal waxaan qabaa oo ku hadalay oo sheegnay shalay waad ogtahay dawladda Maxamed Siyaad Barre burcaan joogay abaartii daba dheer beer dadkii laga soo qaaday oo jooma la keenay rag badan oo maanta mas'uuliyiin oo dawladda siyaasadda ku jira mutacalimiin oo ay lahaayeen ku soo waxay yani dadkaasi noloshoodii waad garanaysaa dawladdii xilligaa jirtay qaabkii oo ka wargaraysay maanta inaan intii la soo celiyo meel cidlaa lagu daadiyo sax ma ahe waxaan u diyaarinay masaafo dhan oo xeebta ah oo aan ku nidhi kalluumaysi loo sameeyo dhul beereedkana ha loo sameeyo dadkii nolol ha loo abuuro caafimaadkii iyo iskuuladii iyo ha loo diyaariyo yani wax badan baanu ka hadalnay oonu ku nidhi dadkii waxaan u baahannahay wejigan iyo wejigan in la sameeyo laakiin dowladda Kenya oo markii dambe inkastoo hakisay iyaduna tirada culays buu nagu yahay waxaad ku siisaan halkan meesha ugu geeya iyo qolihii hay'adihii UNT wax bixinayo iyaguna isla wareeg galgalay anigu mowqifkaygu waan qabaa oo waan banaan baan la taagnahay dadkan guriga yiraahdeen hay'adaha qaar baa waxba dhisaynaa kuwa hore u dubinay ma jira guri iyagu ayna soo ogoleen digaag uu gari kara inta la dhisaa waxa la yiri ha ku xaroodeen qoxoti guriyana dejinayna oo dad lugta ku dhufatana dumay marka taas waxaan isleeyahay anigu in hadda ay shabaab galaan iyo inay dib kale sii geystaan inta waxa sabab u noqonaysa cid soo celinaysa in diyaarinin marka hore barnaamijka dadkaas noloshooda sababtoo qofka noloshiisa way isbedeshay haduu reemiya maanta reemiyi ma haduu beeraley ma haduu xoolo dhaqato ma waa qof mutacallin oo reer magaalo oo wax soo dhigtay oo ilaa dugsi sare ka baxay oo u baahan oo fakaraya maanta oo la socda miidiyaha caalamka oo dareen ku jira weey haddii noloshiisa ka soo xidhay maxaa uu diiday inuu isdilo oo isqarxiyo cid ma diidayso madaxweyne su'aasha kale ku weydiinay waxa weeye gobolada Jubbooyinku sida hadalkaaga ku dartay waxay ka mid ahaayeen ama ay ka mid yihiin meelaha ugu qaniisan ee dalka Soomaaliya beerihii iyo kalluumaysigii iyo xoolihii maxaa ka sii nool tusaale ahaan beerihii iyo markaad eegto iyo kalluumaysigii horta badii lama qaadan way taalaa absalaam dhulkiina lama qaadan beertii way taalaa xoolihii waxa awaare dhamaysan mooy hadda waa la abuur kara hadii calaf loo helo ka faa'iideysigii iyo amnigii iyo isku xidhnaanshiyo baa loo baahay nimcadii wadanka taalay sideedii bay u taalaa ama beer ha noqoto ama bad ha noqoto anigu kalluumaysi baan ahaa waxaa laga yaabaa maanta intaasoo dooyood oo aad dirto waxa ay keenaan inay kugu adkaato inaad hadda waxaan aadan iyo hadda hay'ad NRC iyo ARC yaamin hay'ado kale waxay ka shaqeynayaan barnaamijyo kalluumaysi oo hadda la abuurayo qaabka waxaan gaaleeyay kalluunkii maanta waxaad intaasoo dooyood badda u dirtay waxaad tiri kalluun hala soo qabto marketka magaalada gudihiisa ma qaadan karayo waxaad u baahan tahay storage-kii iyo gaadiidkii qaadi lahaa iyo suuqii waa inaad intaa isku xidho haddaadan sidaa yeelin intaad soo qaada storage ku gurto oo qaboojiyaal ku gurto shidaalka ku baxayaan kugu kharibayo oo hadhow kharashka isma bixinayo haddaad tiraa banaankan ku gadaya waa inaad daadiso oo ma laha waxay sameeyeen dadku markay soo bixiyaan intay qallajiyaan milix mariyaan inay waraan ay banaanka dhigaan marka wixii uu wada yaalaa oo hadda kalluun iyo inta u baahna badiina waan keenaynaa beeriina waa la helayaa laakiin amnigii iyo waxaan u baahanahay inaan suuqyadii iyo helo barnaamijkaas waxaan isleeyahay meel fiican buu marayaa wax walbana amniga kama soo hadha cabdisalaam amniga asaa ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo madaxweyne mustaqbalkaaga siyaasadeed sida loo arkaa cabdisalaam marar badan baan ka hadlay anuu mustaqbal siyaasadda mustaqbal kamini ma u socdo mustaqbalkayga waxaan rabaa inaan ganacsi ahaado ma ihi qof doonaya inuu siyaasadda kusii jiro ma ihi qof siyaasi ah oo siyaasad raba inuu quuto mustaqbal siyaasadeed laa taa federaalkaana u soconin walaa mid iyo kusii jiris waxaan rabaa waxaan ka tegay muddadan joogan inuu noqdo wax legacy oo la taaban karo anigoo xorana berri aan ganacsiga geli karo kalluumaysiga ku noqon markaad ka dhaqaaqayso haddaad noo tilmaanto Jubbaland sidee baad doonaysaa inaad aragtid waxaan ku rayn lahaa Jubbaland oo degan oo xasiloon oo horumarkeedii iyo wax walba ay kala socdaan
oo gaariga intaan kaxaysta aan la tegi karayo xeebta aan doono aan shaqadeedii ka qabsan karayo oo qof waliba uu dareemi karayo nolol iyo amni inaan helo taasaan aada u jeclaana oo Soomaaliya baska birimada ee Kismaayo ka baxay waxaa lagu tukan jiray salaada duhur Muqdisho marka wadada aad qaaday dad baawr yar wadana way ka sii fiicneen maanta diyaaradaas la qaadaa waxay soo soconayaan ma jiro marka aad waxaan u jeclaan lahaa Soomaaliyadii shalay aan shalay ku nooleen oo sideedii inaan helo si nabad ugu noolaan kareen oo abaartan iyo faqrigan iyo gaajadan iyo argagaxan iyo dilka iyo shabaabkan iyo waxaan la waayo dadkuna Soomaali ay noqdaan magacnaguna uu Soomaali noqdo ee una noqonin magacyo kale oo kala duwan madaxweyne aad iyo aad baad mahadsantahay وهاجنتاسي waxa ku dhan waraysigan oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe aan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee magaalada madaxda Jubbaland barnaamijka waxa kala socoteen telefishinka Universal ee intaanu dib u kulmayno dhamaantiinba nabadgelyo